odayto dabeetan jira baa beri masaajid tagay dadna wuxuu maqlay sheekhi wuxuu ka maqlay khudbad intuu dhageystay xilli kasta oo saantaada la ciyaarto hal gaal baa dishay dad laba jeer la ciyaarto laba gaal baa dishay dabadeedna saasaad jannada ku galaysaa haddaad habeen dhayl gaal ka disho odaygu wuxuu siyaa jannada gashi intuu hadhuur iyo qabandi soo baxaysta islaantiisu yimi markaasuu ku wax maqlaysaa saasaa jirta habeenkii intaa haddaan galo intaasoo gaal baan dilay jannada hore ka gelaya awalba waan ogaabay tidhi anigu in hawshani jannada lagu gelaye wad odaygii baa haafka hore ciyaarta si wacan u galay haaf labaadkii buu haddana galay mar saddexaadkii iska seexdo odaygii intuu naqas ku dhagay isagoo iska seexdo isduduubay ay ku tiri waryaa tacaana u keentay war toosniyo gaalada intii hadhay aynu laynayso iyo gaala hadhay mar afraadkii bay tiri carro dibaddu qayli waa reeriyo dhan butoosiyey markaasay ku tiri war maxaad la qaylinaysa sida gaaladaanu cid nala laysa u doonanaa habeen dhaweed baan gabadh ku yidhi sawirradaada ii soo dir cabbaar bay igu adkaysay waxay tidhi kuma soo dirayo walaal sawirradayda qof hore uma dirin markii dambe waxay ii soo dirtay gabadh indhawaaweyn oo intaa indhuu laagaysho ay ilmaabtiyiinoo dibaddaa jirta gabadhii baan anna iyadii mooda waaya walaal waa kuu xiftiyaa meel baan kuu dhigayaa laba cisho kadib bay tii statuska soo dhigtay walaashay Samiira waan ku hambalyeynaya gabadhii meel ka qalin jabisay anna ribeel baan u galay markaasaan ku yiri Samiira waatay saygu tideetan soo maalinta maxaad igu soo diray marka dumar oo ka daay ragga sawirada beenta u dirasaan mid kale aan ku yiri iyadana sawir ii soo sawirada ayadeed moodo in dhaqaab weyn ay xiran tahay ii soo dirtay saygu tii waliba ilaali oo meel dhigo sawirkayga qof kale hayga aan ilaaliyo isaga markii hore deemaay aan ku sawirada aan dirayno photograph aan la doonan dumar oo ka daay ragga beenta sawirada naaleedin photograph bay gala jiraan mobilka ba xalay baan dhaqay waxa sabeen walaaltay looma dulqaadan nin baa bari wuxuu ka shakiyeen xaaskiisa lala sheer gareeyo dabadeedna nin saaxiibkii soo qadageeyo kiino maanta markaad ila qadayso waan ku qadageynayaa xaaskaygaan odhanaya qadaynoo keen qol baan adigana ku fadhiisinayaa dabadeedna markii xaaskaygu kugu timaado naaska ku dhagbuyo walaxay sameeysan eegay dabadeedna naaskii buu ku dhagay way qaylsaa dabadeedna nin kala ordo yiri maxaa dhacay ستيم واحد عيبان قرنيا سو نيكي دماشيها تريس كدوشك كما قوبي قاعدين شراتنا والله هو بايغا قبتي يا وين يسلوغا يوحسي نايا وين كفاني شوف انا الهي waxaan ku farnay shib laga dhigay anaka markii uu ka haystay oday reer muduga gabadh yar oo qabay 18 jir ahayd farmasi u soo kaxeeyay tumiga ka keenay farmasi u soo kaxeeyay farmasiga markuu saaw keenay doctorada Soomaalidu waa yara bil akhlaaq dabadeedna farmasigii buu gabadhii geeyay markuu geeyo odayga kursi halka loo dhigay gabadhiina waxa kaxeeyay kii doctorka qol yar oo halkan bahala cadcad wax ku xiran yihiin bay uu la galay soo uu soo mudayay dabadeedna odaygu halka fadhiya wuxuu maqlay doctorkii gabadha kule naafeyd marada dirbad buu halka badhida doonayay inuu kaga dhufto odaygu baa intuu booday wuxuu nacasnimadiisa gabadha xaamilada ahayd buu hunguroon doonaa inta odaygu orday budla booday doctorada Soomaalidan ka aqaan nacasnimadooda gabadha xaamiladeed buu hunguroon doonaa odaygii baa isa siiday waxaan u sheegayaa hablaha Soomaaliyeed xiriirka lagaga baxay beriyii u dambeeyay gabadha adaa uu aan xiriirka lagaga baxo wiilkii iskuulka kula dhigan jiray baa screenshot ka qaasa walaalkay macaane kala saara walaaltinimada iyo xiriirka raggan jacaylka ka baxay way ka masayrayaan ninka yaraa screenshot ka soo qaadaso stiigaraa la isaga soo ka diraya screenshot walaalkay kana waa walaalkay kay iskuulka wada dhigan jireen baa stiigar u soo diraya kay malcaamada wada dhigan jireen baa shumis u soo diraya kay bareefadka wada dhigan jireen maasna wax yar qoraal u soo diray screenshot baa laga soo qaadaya ninkii markuu arko waxaan oo screenshot nin walba la leeyahay waa walaalkay wuu xanaaqaya adaa u sababo qof walba screenshot baad ka qaadaysaa markaas aan waa walaalkay hadalkiisa kama daalo kana waa ka hela waxa iskaga ka khaldan gabadhay adiga oo maanta 25 jir oo dugsi sare dhameeyay xiriirka ninka aad la lahayd iyo ka aad walaaltinimadu in la dhaxayso dumarka Soomaalidu waxaan maqlay waxay guursadaan ninkii caayaan gabadh baa ayaan dhoysay nin caayay lahayd waa bahal neefa kooliga ma dhigo habeenkii uu 10 ku soo karaacaya midna ka sheekayn maayo dhalay weeye waxa bil akhlaaq aadaya hal dambiska soo kiwacay habeen dhaweyd guursado la tag ya dumar oo ka daay ragga beenta u sheegaysaan gabadh baa maalin dhaweyd nin guursaday dadna waxa uu sheegatay in Maari Kaftan la yiraahdo isagoo Maari Kaftan u haystaa hooyadeed soo wacday ninkii markaasay ku tiri ka waran Xaliima wax uu rayo miya yeelad kula Xaliimade sana saada gabadhayd in Maari Kaftan islaanti baa inta yaabtay tiri oday geed ka jilcay baa bari gabadh yar guursaday gabadhuna gabadh yar oo 18 jir ahayd
habeen dheel markuu hawsha bilaay wax go'oon waan soo qaboojiyay bahalkan ma diibad biyaha qabow halka u sii dhig marka waa lagu qaboojinay habeen dheel wax ku yaa waan soo qaboojiyay dadna tiyaradna runbay moodo habeenkii doo iyadoo jimcad tahay baa biyaba la waa oo reerkii oon noqday toona wax muuqalasa annaga midhka naga soo qaboojinay sayda waxaad meesha ku hayso odayga gabdho adeer meena dhibataa doonaysa meel magtaada la qaatay waxaan maqli jiray dumarka Soomaalidu ninkii wax haystay wax ugu daraa habeenkaad guursato 10 naagood oo meelay ka yimaadeen aadan garanayn oo aadan weliga arag balaabtiisa ku ganay Allah walaalo miyaad guursatay Allah walaalo hadda inta iska bulataay wax laabta ku gelinay yarkimeys wax kula soo hadlay yarkimeys gabadha wax baratay aan guursan ee shaqaysata waxay ku oranayaan way guursan weyday guumeys bay noqotay bal aan hablihi la ka afar caruuray leeyihiin ta guursatana waxay ku oranayaan may shaqaysato may wax barato guur bay ku degdegtay inaan yar bay iska raac islaanta xabuubta iibinaysa waxay ku oranayaan caruurteedii bay ka tagtay caruurteedii oo dhan ma baqtiyaysa iyaduna maalinta dhan xabuub iibinaysa iyo Soomaalida meel loo raac garan maayo war waxaan u sheegayaa dadka ilkaha xidhay ee ilkoodu xidhayiin inay dhunkashada iska ilaaliyaan hablaha la dhunkanayo laga ilaaliyo waa mar quriyo idinku is dhunkanaya ilkii isku dhagaan dabadna la isku soo kiingaadho idinku qabto dadka ilkaha xidhano waxa jirto oo kale hablo badan oo inta sawirkaaga soo dhigtaan WhatsApp oranaya walaal iyo wehelba waxay uga jeedaan adigu waxba ma tiida qof kale aan la sheekaysta adigu waan ku ixtiraamaa been badan laakiin kulama sheekaysto de ixtiraam gaar ah ku haysa waxa la yiri dumarku ninka jilicsan way ixtiraamaan ninka qalabsan way jecel yihiin وما مهني وين أنا حالسمي حالة تونس ما له صدق لما ميلود أي دمركم رجع كقيميان صدق ميلود دمركم رجع كقيميان مركي أركان واحد كمية تيمة بين بدنا كورد مرك كورد مرك ساكو يقدر ركع عجي تيمة عجي عجها يكبه يجلس أي صدق ميلود كله كقيميان hablaha quruxda badan waa deeqsiino hablaha kale way ka deeqsiin sababtan inii sheegaya iyadu 10 kun haday hayso 10 kun meel baad ku wada cunaysaa waayo waxay og tahay hadii caawa ay qofku taay soo dir inuu soo dirayo alla kuwa kale maxaa duminaysa kuwa kale inaadeer deewa ilaahay baa u maqan looma dira laakiin hablaha quruxda badan waxaan ogahay inay deeqsiin waa wado way inta soo gasho ka baxaysa badanada waxa la yiri gabadha quruxda badan shaqo ma weydo waar way weydaayaa oran hadda haas kuma ramo gabadha soo qurux badan waxa ka dambaysa gabadh faa gabadha magaalada ku cusbay waa istaqaanaan oo sheegasta magaalada ay timi habeenkii oo dhan baad garaacday haddana markaad garaacday gabadha magaalada ku cusub oo ku cusub tahay waa dadka lala gaaro waa haddana garaacday aakhirkiiba la markaa qabatay maxaad samayn lahayd intaas haday lambarka markaa qabato waxaan ku oran lahaa dawlad lambarka maxaad iga qaban weyday dabadna soo kaxayn lahaa xaafadaydan meel geyn lahaa hablaan oran lahaa in la saxatay habeenka aroortina gaari baan saarin dad badan oo ina daawanaya ayaa marka garaacista maqleen yaa xumaan ba dhigooda ka buuxdo tanaxda wada iska dhirgay waar iska dhirigtaa ma jirto saddexda meelood ee dumarku ragga tusaan laakiin aan rag wax ugu falin aan rag wax ku falin burku waan falaa dumarku ma loo rag tusaya wallahi kale baridu ku jirta saddex meelood ma indheelay tusay ayna laakiin wax qiimaha inoo ugu fadhiyo kale barida